Asalaamu calaykum. Sirta Shiinaha ee noqoshada warshadda caalamka. Haddii aad fiiriso sumadda alaab kasta ama product walba, waxaa aad u sarreeya fursadda aad ku heli karto erayada ah Made in China ama lagu sameeyey Shiinaha. Waxay u egtahay in wax walba lagu sameeyey Shiinaha, oo ay ku jiraan iPhoneska, Nikeska, kombiyuutarada dad, iyo waxyaabo kaloo badan. Laakiin sidee Shiinuhu ku noqday warshadda adduunka? Dhammaadka muuqaalkani waxaad fahmi doontaa sida Shiinuhu dhaqsaha ugu ballaariyey dhaqaalihiisa, sababaha qof kasta uu u doonayo inuu ka sameeyo wax soo saarkiisa halkaas, iyo caqabadaha mustaqbalka soo food saaraya. Laakiin marka hore wax yar oo taariikh ah. Jamhuuriyadda dalka ee Shiinaha waxaa la aasaasay sanadii 1949 iyadoo uu hogaaminayay Mao Zedong. Mao Zedong waxaa lagu ammaanaa casriyeynta dalka iyo gacan ka geysashada in Shiinuhu uu noqdo awood dunida qayb ka ah, asigoo tiyeeyey nidaamka waxbarashada, horumariyey nidaam daryeel caafimaad oo wanaagsan, iyo in uu aas-aaska u dhigay dhaqaale aad u horumarsan. Si kastaba ha noqotee, maanta Shiinaha waa waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, waa waddanka ugu wax soo saarka iyo ganacsiga badan, waana mid ka mid ah maalgashadayaasha ugu saameynta badan waddamada adduunka. Shiinaha ayaa ka beddelay Mareykanka warshadda ugu wax soo saarka badan adduunka, waxayna ku socdaan xawaare ay suurtagal tahay in la dhaafo dhaqaalaha Mareykanka si ay u qabato booska dhaqaale ee ugu sarreeya adduunka. Shiinaha runtii waa warshadda adduunka, iyadoo in ka badan 47% dhoofinta ay aadayso dalalka Aasiya, 22% loo diro Mareykanka, 19% Yurub, iyo 4% Afrika iyo Latin America. Dib u habeynta dhaqaale ee Shiinaha. Sanadii 1978, 2 sano kadib dhimashadii Mao Zedong, Deng Xiaoping wuxuu noqday hogaamiyaha ugu sarreeya Jamhuuriyadda dalka Shiinaha. Xilligani cusub ee hogaaminta, dib u habeyn dhaqaale ayaa la dhigay, taas oo Shiinaha u qaaday jiho gebi ahaanba cusub, waxayna gacan ka geysteen in Shiinuhu laga wareejiyo bulsho ku tiirsan beeraha, loona wareejiyo dhaqaale ku aadan suuqa, iyadoo diiradda la saarayo ganacsiga shisheeyaha. Mid ka mid ah dib u habeyntii ugu muhiimsanayd wuxuu ahaa xeerkii shisheeyaha ee Shiinaha ee la soo saaray sanadii 1979. Tani waxay dalka u furtay maalgashiyo shisheeye, waxayna u oggolaatay shakhsiyaadka Shiinaha inay bilaabaan ganacsiyo aysan lahayn dowladdu. Tani waxay ahayd barbilowgii dhowr xiriir oo ganacsi oo muhiim ah, oo ay ku jireen lamaanahooda koowaad ee ganacsiga mustaqbalka, Mareykanka. Aynu hadda eegno sababaha suurtageliyey in Shiinuhu uu noqdo warshadda adduunka. Dhaqaalaha Shiinaha wuxuu ku kobcayaa inuu yahay awood wax soo saar. Wax soo saarka qarankuna u muuqdo in meel waliba laga heli karo. Inta badan astaamaha, sumadaha, iyo istiikarada alaabaha kala duwan waxay ku dhawaaqayaan in lagu sameeyey Shiinaha. Maxaa wax walba loogu sameeyey Shiinaha? 5 sabab ee ugu weyn oo Shiinuhu u noqday warshadda adduunka. 1. Xiriirka ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Shiinaha iyo Mareykanka wuxuu bilaabay inuu soo hagaago sanadii 1972. Mareykanku wuxuu Shiinuhu ka soo dhoofiyey badeeco qiimaheedu tahay $4.7 milyan oo keliya. Markay ahayd 1984, Mareykanku wuxuu ahaa saaxiibka saddexaad ee ganacsiga ugu weyn Shiinaha, laakiin Shiinuhu weli wuxuu matalayaa wax ka yar 2% dhammaan soo dejinta Mareykanka. Bartamihii 1980-yadii, dowladda Shiinaha waxay bilowday inay siiso shirkadaha xorriyado ballaaran, iyadoo ka khafiifinaysa xadidaadaha sicir bararka, una oggolaanaysa inay sii haystaan macaashkooda oo ay dejiyaan mushaharkooda. Waxay sidoo kale u soo bandhigeen dhiirigelin canshuur maalgashi, dal iyo ajaanibba. Dhammaan dib u habeyntan isbiirsatay waxay gacan ka geysteen aasaasidda Shiinaha inuu noqdo dhoofiyaha weyn ee adduunka. Sanadkii 2015, Shiinaha wuxuu dhaafay Kanada, oo ah saaxiibka ganacsiga ee ugu weyn Mareykanka. Xiriirkan ganacsi ee uu la leeyahay Mareykanka, oo sanadadii dambe loogu hadal haynta badan yahay wararka, wuxuu qayb muhiim ah ka yahay aasaasidda Shiinaha oo ah quwad dhaqaale. Laakiin waa mid ka mid ah dhowr arrimood oo ka caawisay Shiinaha inuu noqdo warshadda aan muranka ka taagnayn ee adduunka. 2. Mushaarka oo aad u yar. Shiinaha ayaa leh shaqaalaha ugu badan adduunka, iyadoo qiyaastii 775 milyan oo ka mid ah wadarta dadweynaha ee ah 1.4 bilyan ay si firfircoon u shaqeeyaan. tirada badan ee shaqaalaha ku tartamaya shaqooyinka warshadaha
ayaa taariikh ahaan awood u siisay soo saarayaasha Shiinaha inay hoos u dhigaan mushaarka. 3. U hoggaansamida xeerarka oo aad u yar. Kobaca wax soo saarka ee Shiinaha waxaa caawiyay la'aanta xanibaadyo iyo qawaaniin ay caan ku ahaayeen reer galbeedka. Xeerarkaasi waxaa ka mid ah kuwa la xiriira shaqada carruurta, caafimaadka iyo amniga, ilaalinta deegaanka, iyo sharciyada mushaharka. Warshadaha Shiinaha ayaa caan ku ah inaysan raacin inta badan xeerarka iyo tilmaamaha. Inaan xoogga la saarin qawaaniinta noocyadani ah waxay caawinaysaa hoos u dhigida kharashyada. Si kastaba ha noqotee, waxay ka dhigan tahay in sanado badan shaqaalaha warshadaha oo ay ku jiraan carruurta ay shaqaynayeen 16 saacadood ama ka badan maalintii, 28 maalmood bishii, ayna ku shaqeeyaan xaalado aan aamin ahayn. Qaar ka mid ah loo shaqeeyayaasha xitaa waxay xayiraan mushaharka ilaa dhammaadka sanadka si loo hubiyo in shaqaalahoodu aysan ka tegin shaqada. Waxaa jira cawaaqib bey'adeed sidoo kale. Laga soo bilaabo 2018, 22 ka mid ah 50 magaalo ee adduunka ugu wasakhaysan ayaa ku yaala dalka Shiinaha. Waa run in sanadihii la soo dhaafay Shiinuhu uu qaaday tallaabooyin waaweyn oo ku saabsan kordhinta qawaaniinta lagama maarmaanka ah, sida mamnuucidda ku shaqaynta carruurta ka yar 15 sano, kordhinta mushaharka iyadoo laga jawaabaya kororka qiimaha nolosha. 4. Ganacsiga deegaanka. Wax soo saarka warshaduhu kuma dhacayaan go'doon, laakiin wuxuu ku tiirsan yahay shabakadaha wax soo saarayaasha, qaybiyeyaasha, hay'adaha dowladda, iyo macaamiisha dhammaantood oo ku lug leh geedi socodka wax soo saarka iyada oo loo marayo tartan iyo iskaashi. Nidaamka deegaanka ee ganacsiga Shiinaha ayaa wax badan iska beddelay 30kii sano ee la soo dhaafay. 5. Canshuuraha iyo waajibaadka. Siyaasadda dib u celinta canshuuraha dhoofinta waxaa la bilaabay sanadii 1985 oo ah waddo lagu xoojinayo tartanka wax soo saarka, iyadoo la baabi'inayo canshuuraha badeecadaha la dhoofinayo, taasoo dalka u suurtagelisay inay soo jiitaan maalgashadayaal iyo shirkadaha doonaya inay soo saaraan badeecado qiimo jaban. Mustaqbalka Shiinaha. Xaaladda wax soo saarka ee Shiinaha waxay ku dhowdahay barta ugu sareysa sababo isbiirsaday awgood. Waxaan hore u soo sheegnay in mushaharku kordhayo, taas oo ku kalifaysa shirkado badan inay sahmiyaan fursado kale oo qiimo jaban oo ka baxsan Shiinaha, sida Sri Lanka, halkaas oo shaqaaluhu celcelis ahaan sameeyaan 50 senti saacaddii. Isla mar ahaantaana, warshaduhu waxay magdhabayaan hoos u dhaca shaqaalaha xirfadleyda ah iyadoo otomaatig ka dhigaya inta ugu macquulsan. Tani waxay ka dhigan tahay in aalado robotyo ah ay si degdeg ah u buuxinayaan boosaska shaqaalaha ee warshadaha Shiinaha. Waxaana jira dadaallo oo lagu barayo shaqaalahan xirfado cusub oo qiimo u yeelan kara dhaqaalaha isbeddelaya. Tani waa sababta khubaro badani u sheegayaan in shaqaalo la'aan ay dhibaato weyn ku noqon doonto sanadaha soo socda dalka Shiinaha, iyada oo magaalooyinka ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu daran. Sababahan iyo kuwa kale awgood, Shiinuhu wuxuu bilaabay inuu qaado tallaabooyin dib loogu qaabaynayo dhaqaale ku saleysan adeeg, iyadoo xoogga la saarayo ganacsiga internetka iyo teknoolojiyadda. Sanadkii 2018, boqolkiiba 52 wax soo saarka Shiinaha wuxuu ka yimid waaxda adeegga, halka boqolkiiba 40 ay ka yimaadeen warshadaha. Ilaa iyo inta isbeddelkani lagu taageerayo tababarka shaqaalaha iyo siyaasadda dowladda, dhaqaalaha Shiinuhu wuxuu sii wadi doonaa inuu koro, inkastoo caqabado badan jiraan. Shiinaha wuxuu gaaray koboc aan horey loo arag 40kii sano ee la soo dhaafay, si uu u noqdo warshadda aan muranka ka taagnayn ee adduunka, iyada oo ay ugu wacan tahay dib u habeyn dhaqaale, xeerarka oo xadidan, mushaharka oo aad u hooseeya, shaqaale tiro badan, iyo xiriiro ganacsi oo istiraatiiji ah. Sanadkii 2010, Shiinaha wuxuu noqday warshadda labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan marka laga reebo Mareykanka. Mareykanka ayaa hayay kaalinta ugu sareysa dhaqaalaha tan iyo sanadkii 1871. Si kastaba ha noqotee, dhaqaalaha Shiinaha ayaa si isdaba joog ah u ballaaranaya. Sanadkii 2018, Shiinaha wuxuu ahaa dhoofiyaha ugu weyn adduunka, qiimo ahaan qiyaastii $2.3 trilyan. Badeeco adduunka oo dhan loo diro.
laakiin waxaa jira calaamado muujinaya in isbeddelkani aysan sii socon doonin sanadaha soo socda, maadaama waddamada soo koraya ay awoodaan inay bixiyaan shaqo jaban. Hase yeeshee, Shiinuhu wuxuu u muuqdaa inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha mustaqbalka, isla mar ahaantaana la jaanqaado hadba sida loogu baahdo si uu u ilaashado awooddiisa dhaqaalaha. Haddii aad raadinayso inaad bilowdo ganacsi, xaqiiqdii waxaad u baahan tahay inaad fahanto doorka Shiinuhu uu ka ciyaaro dhaqaalaha adduunka, iyo sida adigu ay kuu saameyn karto.